xiriirka ka dhexeeya dalalka Turkiga iyo Ruushka cidna kama qarsoona waxaa la rumaysan yahay inuu jiro xiriir wanaagsan oo u dhexeeya labada dal balse haddii aad si taxadar leh u fiiriso xiriirka ayaa ka muuqda amaba inta badan laga arkaa dhinacyada ganacsiga iyo dalxiiska hase yeeshee xaqiiqadu waxay tahay in Turkiga iyo Ruushku ay tartan adag geliyaan qaybo kala duwan markii Turkiga uu ku dhawaaqay in Ruushka uu ka iibsanayo nidaamka difaaca gantaalaha ee S-400 dalalka NATO oo uu ku jiro Mareykanku waxa ay codsadeen Turkiga in aanu tallaabadaasi qaadin oo uu joojiyo hubka uu ka soo iibsanayo Ruushka xitaa Mareykanka ayaa xoogaa xayiraada ku soo roogay warshadaha difaaca ee dalka Turkiga balse Turkigu waxa uu cadeynaysan jirin cid ka hor istaagi karta in uu sidaasi sameeyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dalna uusan ku amri karin inuusan iibsan gantaalada S-400 arrintaasi ayaa iftiimisay in xiriirka Turkiga iyo Ruushku uu yahay mid xoogan siina jiri doona muddo waxa kale oo go'aanka Turkiga uu muujiyay inay sax tahay in xiriir ganacsi ay labadooda yeeshaan uu yahay amaba ay leeyihiin uu yahay mid aad u qoto dheer Ruushka ayaa u dhoofiyay ku dhawaad kala bargaaskiisa si uu isticmaalo Turkiga tan iyo sanadkii la soo dhaafay 3 meelood meel kaliya oo ah gaaska ayaa laga soo iibiyay dalka Ruushka dhinaca kale kahor inta uusan bilaaban cudurka faafa ee COVID-19 sanadkii 2019 7 milyan oo dalxiisayaal Ruushka ah ayaa tagay dalka Turkiga kuwaas oo ahaa tiradii ugu badnayd dad ka soo jeeda Ruushka oo taga gudaha dalka Turkiga isla xilligaasi Ruushku waxa uu koonfurta Turkiga ka dhisayay warshad nukliyeer ah taasoo shaqeyn doonta ilaa iyo sanadka 2023 toddobaadkan mar uu madaxweynaha Turkiga Erdogan booqday Ruushku waxa uu amaanay iskaashiga Ruushka ee dalkaasi inkastoo uu jiro iskaashi ganacsi oo aad u ballaaran oo labada dal ay wadaagaan haddana meelo badan waxaa ka jira jahwareer u dhaxeeya xiriirka labada dal taasina waa dhinaca dagaalkii dalka Syria markii uu Ruushku uu taageerayay xukuumadda Bashar al-Assad Turkigu waxa uu taageerayay dagaalyahanada fallaagada Turkigu waxa uu aaminsan yahay in ururka PKK uu yahay argagixiso waxaana uu rumaysan yahay in YPG ay ka dagaalamayaan Suuriya uu yahay lana markaa farcantahay ama ay ka farcantay PKK dhawaan madaxweynaha Turkiga Erdogan markuu booqday Ruushka waxa uu la kulmay madaxweyne Vladimir Putin markii uu kala soo laabtay socdaalkiisa uu ku tagay Ruushka Erdogan waxa uu sheegay in Turkigu uu ka adkeysanayo go'aan kasta oo Ruushku uu gaaro Syria oo aysan su'aal ka taagnayn in dib loogu laabto marka laga hadlayo weeraradii dhawaan ka dhacay Syria Erdogan waxa uu sheegay in heshiis ay la galay Ruushka si gobolka looga tirtiro kooxda argagixisada ee YPG amaba PKK kaas oo markaa la fulin doono waxa uu carabka ku adkeeyay in intii uu booqashada ku joogay Ruushka si markaa dhaba la iskula markaa qaaday arinta joogitaanka kooxda YPG PKK waxaana uu xusuusiyay markaa Putin inay tahay in iskaashi xoogan ay kala yeeshaan la dagaalanka argagixisada Turkigu waxa uu rumaysan yahay in ugu yaraan 40,000 oo qof ay markaa ku jiraan markaa haween caruur iyo dhalinyaro ay ku dhinteen intii uu socday weerarka 35 sano oo markaa PKK ay Turkiga ku soo qaadaysay Mareykanka iyo midowga Yurubna ayaa markaa ururkan ku daray liiska ururada argagixisada Mareykanka ayaa sidoo kale ahaa dhinaca saddexaad ee dagaalka Syria kaasoo martaageeray dagaalyahanada mucaaradka oo ay ku jiraan PKK markii uu ka soo laabtay socdaalka oo uu ku tagay Ruushka Erdogan waxa uu sheegay in magaalada Roma uu markaa kula kulmi doono madaxweynaha Mareykanka Joe Biden Erdogan ayaa sheegay in Brett McGurk oo ah isku duwaha aqalka cad ee bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika uu yahay agaasimaha PKK YPG BYD Erdogan ayaa sheegay inay tahay in Mareykanka uu markaa sida ugu dhaqsiyaha badan uu uga baxo Suuriya kuna wareejiyo dadka dalka iskale Liibiya Turkigu waxa uu faragelin ku sameeyay Tripoli si uu caawiyo dawladda caalamku aqoonsan yahay
laakiin waxaa weeraray ciidamada Khalifa Haftar. khubaro ka tirsan qaramada midoobay ayaa wakaalada wararka ee Reuters u sheegay in kooxda Ruushka ee Wagner ay dirtay dagaalyahano si ay markaa u caawiyaan Haftar, halka Turkigu uu diray dagaalyahano Syrian si ay u caawiyaan xukuumadda Tripoli. labada dhinac ayaa gaaray heshiis xabad joojina bishii Oktoobar ee sanadkii hore, laakiin dagaalyahanada ajnabiga ah ayaa ahaa inay markaa ka baxaan Liibiya marka la gaaro Janaayo. ilaa hadda labaduba way iska indhatireen taariikhdana markaa taariikhdii ugu dambeysay ama kulankii ugu dambeeyay ama heshiiskii ugu dambeeyay ay galaan. marka laga soo tago, Turkigu waxa uu si cad ula saftay Azerbaijan dagaalkii Azerbaijan iyo Armenia sanadkii la soo dhaafay. Ruushku waxa uu la jiray dhinaca Armenia intii lagu jiray dagaalkii lagu qabsaday gobolka Nagorno-Karabakh ee buuraha koonfurta. Ruushku waxa uu Armenia kula jiraa heshiis in uu markaa ilaalin doono. marka laga reebo tan, Turkigu xitaa ma aqoonsana qabsashada Ruushka ee Crimea. Turkigu waxa ay sheegeen inay muhiim tahay in la ilaaliyo madax banaanida Ukraine. Ruushku aad buu uga carooday hadalka Turkiga, laakiin waxa iska indhatireen. Erdogan ayaa mar kale ku celiyay bishii la soo dhaafay hadalkaasi. bishii Abriil, Erdogan ayaa sidoo kale sheegay inuu Ukraine ka caawin doono ka hortagga ciidamada Ruushka ee xadka ku sugan, halka Ruushku uu markaa uga digay Turkiga qaadista tallaabo keeni karta dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo markaa dhaawac ku imaada xiriirka labada dal.